ururka suxufiyiinta somaliland ee Solja ayaa 9 Maarch 2019 oo maanta ku beegan soo qaban qaabiyay kulan u gaar ah hablaha suxufiyiinta Somaliland kulankaasi oo lagaga hadlayay caqabadaha hortaagan hablaha suxufiyiinta Somaliland iyo sida ay uga bixi karaan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland Maxamed Buuni Khadra Kaliil oo ka socotay ururka Soxo oo dhamaantoodba ku dheeraaday caqabadaha hortaagan haweenweynaha ku jira warbaahinta Somaliland iyo sida ay uga bixi karaan injineer Xuseen marka runtii xukuumaddu way dhiirigelinaysaa arrimaha noocan oo kale in haweenka laga gacan qabto waxay sidoo kale ka dhareegsaneedeen in golaha wasiiradu ay soo baasgareeyeen in haweenku ay kootadii helaan xagga aqoonta idinka ragga kaga wanaagsan laano waanigii hore u sheegayo commitmentka iyo in shay laga midho dhaliyo xagga samirka habluhu way ku wanaagsan haweenka warbaahinta ay isku arkayeen iyo mas'uuliyintooda isku wareysanayeen wixii caqabadaha jira laga wada hadlayay wixii fursadii jira laga wada faa'iideysanay waxa weeye quruxdeeni waan ku xaragoonayna adoo dumarnimadaada iyo akhlaaqdaada iyo wanaagaaga ilaashanaya iyo inanimadaada inaad waxaaga raadsataa wax ka horta marka hablaha waxaan oran lahaa anigu hadaan odayahayn waana islaahdo waani tacliin iyo tacliin waa ina wax barasho ku dadaashaan waayo qofku hadaan wax baran ma ogaan karaba wuxuu xaq u leeyahay iyo wixii xaq lagu leeyahayba sidoo kale waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Solja oo ku dheeraaday caqabadaha hortaagan hablaha suxufiyiinta Somaliland iyo sida uga go'an tahay in hablaha warbaahinta ku jira ay helaan doorka ay ka mid yihiin ururka suxufiyiinta Solja sidoo kale wuxuu cambaareeyay jirdilka iyo xariga loo geysanayo hablaha suxufiyiinta Somaliland anugu mudan oo aanu aad culays ka u saarnaa dareenka ah in dumarku ay saaxadda saxaafadda runtii wax badan ka bedelaan waxna qabtaan waxaanu qabnaa runtii inay wax badan ku soo kordhin karaan saaxadda saxaafadda Somaliland sanadkan ama bishan ama weekend waxaan qaadanay hadii la yiraahdo 8 suxufi 2 class oo diploma waanu qaadanaa waxaan ugu talagalay oo qoondeynay in ay 40 kamid ugu dambeyntii kulankaasi waxa lagu qabtay dood lagu gorfeynayo caqabadaha hortaagan iyo sida habluhu uga bixi karaan doodaasi ay ka qayb galayeen qaar kamid ah hablaha warbaahinta Somaliland ka hawlgala oo su'aalo lagu weydiinayo dhamaanba ka soo qayb galayaashii hablaha warbaahinta ee goobta ku sugnaa kulankaasi ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay caqabadaha hablaha haysta inay kaga bixi karaan inay iyagu garab istaagaan iskuna taageeraan horumarka ay soo saaraan si ay u gaaraan hamiga iyo hiigsiga ay leeyihiin hablaha warbaahinta Somaliland Farxiya Abdirahmaan Kalsan TV Hargeysa